isku maqanay kala maqanay warya waxaad ku maqnayd mahankeene isku maqanay kala maqanay waxaad ku maqnayd mahankeene waxaan ku maqnay dadkan maqano warya wixii ka maqnay muraad kala ahayn waxaan ku maqnay dadkaan maqanayo wixii ka maqnay muraad kala ahayn warheed isku maqnay maalmaha waxa la warhayay buurta Karamardhe war Karamardhe yaa wax ka yaqaan wax looga sheegay wadaadkan qaldan xaw ah isku maqnay warheed isku maqnay ninkan xaw ah buurta Karamardhe dhahay warheed meesha waxa ahayd jagboontigii ugu weynaa oo Itoobiyaanka lagu laayay ahayd war isku maqnay sheeko cusub oo bilaab ninkii Abiy Ahmed Laay mar dhow wuxuu noo sameyn jiray inuu aad noo taageersan yahay danaay Soomaali hadda wuxuu keenay sheeko ah buurti Karamardhe waa la xusayaa askarti ku geeriyootay marka waxa uu kala leeyahay ciidamada halkaas ku geeriyooday muhiim inoo ahaayeen tan kalena waxa uu sheegay in dagaalkii 77 ee u dhaxeeyay Itoobiya iyo Soomaaliya ay guushu raacday Itoobiya warheed Abiy Ahmed uu iska hadlay soo ma dhageysan heesi ah dad la soo kireystay ninkii anigii daran heesu soo gurbaan tunto warheed waxa la soo jiray Cuba waxa kale oo la jiray Ruushka hadii ay wax isku tareen dadkaas ma waxa lahayn waliba maxamed cali samatar oo ka hadlay wuxuu yiri libaaxyada Afrika loo yaqaanay Itoobiya waxaynu ka dhignay bisado war isku maqnay idinka Itoobiya waxa u taqaanin cadow xeera balse maalmahan dhibaato kale ayaa soo baxday oo Itoobiya qaamuuska meesha ay u qornaayeen waa laga tiray waxaan lagu daray liiska walaalaha arintaasna waxay dignin u tahay dadka aaminayo wadamada shisheeye warada isku maqnay Abiy Ahmed ninka la yiraahdo horta soo nabad nolol kama tirsanayn uu ku keenay sheekada asagoo nabad nolol ka tirsan war isku maqnay Abiy Ahmed waxa uu soo wado iyo wabiga yaaween waa ka hadda bilaabay iscodxodeys kale sheekadan hadda maxay tahay marka warnimo wax ma idin sheega waxay ku ogolaadeen in idin sheega waliba ay Itoobiya ku arsadeen dagaalkii Daynuunay ee dhalinyarada lagu dhameeyay waxaan ku iri maalinta Menes Sanaawi ayaa masha madax ka ahaa waxaan iri maan darana kuwii muday inaan Menes mataanoonay waa ka maatadeen in leeqay maalin iyo leyle Muqdisho meelo badan baa la marin meedku ka dhawaaday madbado baa la soo tuba maalin walba majaha gaagaaban mar horan ogaa kuwa inay nimaran doonaan mufsid iyo kufaar tashada muslim dhamaantiis hadii madaafiic iyo rasaas markabyo lagu keenayo maskiin loo dareeyo laba dareen meesh mashaqo Soomaaruntii maalin walba joogto Soomaaliya midigta isqabsada masaajida tago midigta isqabsada mashaqo waa maran abwaano horta waa mahadsantahay sheeko fiicanna waa sheegtay laakiin waxaad ilowday wixii Muqdisho ka dhacay madfac hadhihin qoryo toos la isku dil hadhihin wax walba wixii Muqdisho ka dhacay Itoobiyaanku geysteen oo Karamardhe ay ku arsadeen waa ilowda abwaana wareed waxa doonta miyaad iska sheegaysaa sideen ku ilo waanigan iri hanqalkiisi taagnaa cadowgu waa kan hoyga soo galay hubsada waatan idin la hadii jar hadalka diideen haantuba haduu ay lug lehelo waa hore loo daadso war isku maqnay dad hilib ceeriin cuna cadowtin ma kama dhamaatee naga dhaafa Karamardhe iyo waxaad sheegaysaan sheekooyin kale noo wada wareed isku maqnay maalmahan Shabeellaha hoose mixiisadeedu way kacsaneede yaa war ka haya war isku maqnay Shabeellaha hoose xisad coladeed kama jirto maalmahan laakiin sheekooyin badan ka jira wata ay tagtay marwadii madaxweynaha mashaariic bay halkaas ka soo fulisay maantana waxa gaaray wafdi hordhaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaana kamid ahaa wasiirkiisa gargaarka maareynta musiibooyinka wasiirkii wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha gobolka Shabeellaha hoose iyo waliba wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha marka sheekadu waxay halkaas ugu badan tahay waan fahmi laahay raad isku maqnay waxa idin sheegaya ninkan warkan uu noo sheegay waa saxan yahay laakiin hal meel buu ka qalday meesha madaxweynaha federaalka uma socdo madaxweynaha lafta gareen baa tagaya garoonkii diyaaradaha Barawe oo la dhisay ayaana xariga laga jaraya baa la leeyahay marka waxa garan waaye magaalooyin kale waa weyn oo Barawe ka weyn waa jireene sababta airport lagu sameyn waayay
wasaaradda waxbarashada waxay meesha u tagtana iskuul bay meesha ka dhagax dhigaysaa war isku maqanay waxaa la leeyahay baraawo badroola ka ag dhawaado kow dhaha waa taa sharciga badroolka ansixinee sheekadu sidaas ay la tahay wareed isku maqanay war ma haysiine baraawo meesha la yidhaahdo waxaa laga heray baa la yidhi badrool saas darteed muhiimadda iyo isha dhanba waxay saaran tahay waa baraawe reer niqaanbilow alaabtooda yaa loo tegey wareed isku maqanay qolada ninkan uu sheegayo ma kuwii baraawo deganaa luqadda Portugiiska ku hadlayaba luqaddu ma luqad Portugiis ee waa af Soomaaligiiye ma naga dhaaftaan ciyaarta dhanka kale wasiirka waxbarashada waxa uu leeyahay mashaariic horumarineed ayaa halka ka fulinaya wasiirka gargaarkana uu ku helinayay safarka marka naga dhaafa baraawe iyaanta way ka shadan tahay wareed isku maqanay horta wasiir Xamza xaafadiisiyo aado asalkiisa baraawo ka soo jeeday waxaana idin sheegayaa nabad in nolol haddeer waxay rabtaa inay maartaa sheekadeeda gaarsiiso baraawe laakiin lafta garan in la raaha taagan war isku maqanay maanta war cusub ayaan idin hayaa oo ku saabsan Soomaali dad badan dhulkooda ku haysa jiray iyadana way ku haysa jirta dhul kale balse maanta arrinta taas way ka duwan tahay xuutiyiinta Yemen dawladda Soomaaliya eedeeyeen waxayna ku eedeeyeen inay jasiiradda lagu magacaabo Soqadra ay ka baareen shidaal ay ka baareen xuutiyiinta goormay dawlad isku bedeleen shidaal la baaray iyo wax kale inay ka hadlaan goormay awood u yeesheen koox la cirsanay oo Sacuudi korka garaacay un bay ahayd war isku maqanay marka kooxda xuutiyiinta anaga ay soo waabsanayaan ma al-shabaab ay naga waayeen warhaan isku maqanay qoloba qolo ku jin waa in loo helaa teeda kale mid ayaan idin sheegaa Soqadra dad Soomaaliya ayaaba ku nool xuutiyiinta goormay yeesheen war waxaan bal la yaabay afar xabo soo weerarto Yemeniyiina oo meesha ka shaqeysato ay waxay leeyihiin dartood annaga ayaa meesha iska leh wareed isku maqanay sheeko fiican baa idin haya waligay intaan jiray maamahdu waxay ahayd maana waalan misaadan baa laga heesayaa waxa la yaabanahay Soqadra ka hadleen anaga hadda cadantii baa baleenahay maxay ka leeyihiin xuutiyiinta marka warhaan isku maqanay waxa xaqiiqo ah in cadan laftigeeda aan nus ka leenahay war Soqadra ay sheegayaan hatta labada qofood oo meesha ka shaqeysto ka kaluumaysto looma ogolaan doono inay idab yeeshaan u roonay war isku maqanay dawladii yaantan xuduudihii aad keenaysaa balad xaawiyo haddii aad tagnay Mandheer agteeda Soqadra waxba nala ma ahayn haddaan gaaraynay warka badan naga dhaafaan wareed isku maqanay idinku war ma haysaane nimanka waxa kale oo ay leeyihiin waa xuutiyiinta waxaan leenahay wasiir badrool qaramada midoobaan la fariisanaynaa arrintanna waa u sheegaynaa marka qaramada midooba iyadaba kooxaha waalan bay la fariisataa isku maqanay hadal horaan hayaaye hadalkayga horeen daba socdo ninka hadalkiisa horaan daba socdaaye wuxuu yiri dawladda maalmaha way kacsan tahay waxay ay kormeer ku haysaa xuduudihii adkaysi u leeyahay war dawladda danteeda ma ahayn inay xuduudaha adkaysa coronavirus ku qasbo war isku maqanay dawladda doolo iyo beled xaawo inta iska dhaafto afgooy iyo jawhar tagto waligayba waa maqli jiray waa arki jiray wadaad aan waxba ogeyn kow dhaha waxaan idin sheegayaa dawladdu jawhar iyo afgooy bari hore tagtay say ku tagtay beled xaawo iyo Mandheera iyo luuq hadaysan halkaas joogin war isku maqanay war ma eesaane ninkii Axmed Madoobaha markii uu waabiyay dawladii beesha caalamka kadib waa taa uu bilaabay socdaal dhanka lugta ah hadda waxa la leeyahay waxa uu gaaray Dhobley qorshuun wuxuu yahay inuu si aadan Nairobi waxa sheekada ka sii macaan ay tahay Nairobi waxa tagi doona mar dhow madaxweyne Farmaajo marka arintu waxay u eg tahay in faraha lala soo galay armihii Soomaaliya war isku maqanay faragelinta Soomaaliya shalay maanta sooma bilaaban 30 sano la soo dhaafay ay taagneed sida daraadeedna ciidamo shisheeye ayaa ku dhex jira Soomaalida oo kala celiyo ma taas la yaabaysaa in la kala xaliyo marka wareed isku maqanay horta anigu waxaan idin sheegayaa shalay markii wafdigan wasaaradda arrimaha gudaha Kenyaatiga imaanayeen ujeedada ay lahaayeen waxay doorta Farmaajo inay fariin u keenaan waana u keeneen oo Farmaajo waa la marti qaaday Sheekh Axmed Madoobana ayaga dhalo hoosay kala hadleen hal mid baan idin sheegayaa Farmaajo hadduu xariif yahay madaxweyne yahay Nairobi yuusan aadin ha iska joogo haddii kale waa meeshii lagu soo sumeyn lahaa war isku maqanay idinku war ma eesaane Axmed Madoobe wuxuu dhigi jiray gacmo gali jiray hoosaa loo dhaqaaye dhibkii intaad ka dhaaftaan madaxweynaha dalka Axmed Madoobe wali ma uusan aqoonsan waxaan la filayaa inuu Soomaali kulmine dibku maad ka deysaan wareed isku maqanay adiko horta ma dhoohantihiin waxa wada hadlay Axmed Madoobe iyo Farmaajo ma aha Kenya kulaalka gaaray
laakiin farmaajo hadduu xaliif yaa qaadka ha joojiyo kenya waa isla waalanaya markaas